وفالله halka dhug uga dhigay hadii bisadu iska tagto jiirku uu cayaara hadii dibiga beer qoday u baxeeda daawado ileen kama ay daasheen tuurtiisa dawliga birta dabada kaga xiran waa murti uu Soomaalida u qotamiyay Allah saamaxa dambigiisa abwaan Cabduqaadir Xirsi Yamyam si ay dhaxal ugu noqoto isagoo ka eegay halka ay ku aroorayso oo ah hadii hawl kasta oo la qabanayo aanay jirin natiijo wanaagsan oo ka dhalata isla markaana ay kaga qancaan dadkii hawshaas daalka iyo dayaca ka soo maray xaalku waa weel dabada ka duleela oo biyo lagu shubayo balse haday arkaan bulshadoodii oo guranaya marihii ka dhashay hawshii hagar la'aaneed ay soo qabteen waa hubanti inay iloobayaan wixii habaas iyo haraad ay ka soo muteen hirgelinta hawshooda hadda Soomaaliya marka adeegto dadaalada ka soconaya waa hawlo adag oo loo hurayo naf maal iyo waqtiba haddana waa ay yar yihiin natiijooyinka qurxoon ee ka dhasha marka laga reebo kuwa si dhaanto sidii hore u socdo oo aan xiriir la lahayn arrimo kale oo la doonayay inay isku xiriirsanaadaan si loo higsado hawlo wada qurxoon oo dadka qabtay looga mahadceliyo marka la daawadana lagu wada qanci karo haddii maalin kasta hawl la qabto lagana tago iyadoo aan la dhamaystirin ama aan lahayn qurux la daawado macnaheedu waxay tahay dibigii beerta qoday ee haddana ka sii durduriyay isagoo aan daawan quruxda uu diyaariyay hawshii uu qabtay hadda wili ararta aan dumay dulucdeedii maan gelin waana faalla daba dheer aan ka eega doc kale oo muddooyinkan dambe la oran karo safka hore ayay kaga jirtaa hadalhaynta inta dawladdu leedahay maadaama ay sana jirsatay lagana yaabo in dad badan wax iska weydiinayaan waxa ka hirgalay qodobadii madaxda dalkeenu bilowgii horeba la soo galo joogsadeen inay fulin doonaan muddada ay u qidmaynayaan shacabkooda waan hubaa in guri kasta geed kasta iyo golo kasta oo tiro Soomaaliyeed oo qaangaarhi isugu timaado lagu xanto ama looga tooqo hadba dhaliisha ka muuqata dawlad kasta oo Soomaaliya yeelato iyadoo ay yar yihiin inta xigsata dhanka wanaagga iskuna xil qaama inay dawladnimada ku darsadaan talooyin iyo fikrado laga yaabo inay wax ka tari lahaayeen arrimaha iminka cakiran ee la dhaqaajin leeyahay iyagoo ku goroorinaya maskaxdooda in dawladnimadu ay tahay wax la wada leeyahay oo aanay gaar u lahayn inta markaa shukaanta u haysa balaan idin dulgeeya halka aan u dan leeyahay oo ah mid ka mid ah caqabadaha ku horgudban in Soomaaliya yeelato dawlad awood leh taasoo laga yaabo inay dad badan ila dareemayaan waayo maanta Soomaaliya uma baahna in loo dhiso dhismayaal waaweyn haddana lagu wareejiyo dhagxaan amnigooda ilaaliya uma baahna in warshado aan sii jiri doonin laga hirgeliyo in ganacsi ballaaran oo shakhsiyaad ku taajiraan loo abuuro in jaakado garabaatiyo iyo mobaylo tiro badan loo soo qaato in xeebaha liido iyo jasiiro maalinba koox isku sawirto in gaadiidka aan xabaduhu karin loo soo daabulo inaan isku madadaalino xaflado iyo shirar aan miradho lahayn annagoo awoodna inaan qabanno hawl muuqato oo mustaqbalka jiri karta in qurba joogta u soo aado indhaindhayn iyo xaqiiqi raadin haddana uu qof kasta naftiisa ku aamino hotel ama xaafad gaar ah in idaacada ajnabiya iyo kuwa Soomaaliyeedba la iska soo xanto in halkii laga wada shaqayn lahaa dawladnimada loo soo shaqo tago in dal iyo dibadba aan isku madadaalino dhalanteed isla markaana aan daawano riwaayad ay hal abuureen abwaano ajaanib ah oo ma dhamaato ah balse taa bedelkeeda Soomaaliya waxay u baahan tahay in la isku tanasulo oo la iscafiyo in runta iyo dhagaha la isku furo in si Soomaalinimo oo ficil ah meel la isugu geeyo maal muruq iyo maskax sidii mar qora looga gudbi lahaa mushkiladaha haysta in la fahmo in laga wanaagsan yahay iyadoo aan la isku gudbi karin in dhulka koox loo kala sheegto looguna kala noolaado carramadow carra gaduud iyo carramaayo in qof kasta fahmo inaanay wanaagsanayn hawl uusan isaguba qaban karin inuu maalin walba ku dhaliilo qof kale oo markaa mas'uuliyad haya inaanay ilbaxnimo ahayn in nidaam kasta la dumiyo iyadoo aan dalka loo hayn wax kale oo dhaama in la iska daayo mashxaradaha beenta ah ee baroortu ka dambayso in la is aamino farahana laga qaado fuulista faraska federaalka ah inaan maanta fahamsanayn inta aan faraha looga guban in taariikhdii la soo maray dib loo eego waxna laga barto in si dhab ah loo wajaho furaha mushkiladda Soomaaliya sida lagu xallin karo iyo sida ay u kala horeeyaan caqabaduhu taasoo ah in marka hore hawsha laga bilaabo dhismaha ciidamada iyo sugidda amniga oo runtii hadda aad moodo in si kala daadsanaani ka muuqato loogu daalayo wax ka qabashadeeda marka nabadgelyada lahantana loo gudbo qodobada kale ee hor yaalla sida hagaajinta sharciyada dalka cadaaladda iyo garsoorka dib u dhiska dalka iyo maamul wanaagga iyo horumar kasta oo kale oo markaa dalkeenu u baahan yahay mar haddii la wada qirayo waxa koowaad ee maanta qof kasta oo Soomaaliya u baahan yahay inay tahay amni iyo xasilooni welina lagu guuleysan lahayahay sanado badan oo dawladda ku meel gaar ah shaqaynayeen kadib haba tabar yaraadaan xataa in la hanto ammaanka caasimadda oo qura iyadoo aan ognahay in ciidankeenu waajibaadkiisa u guto hadba sida loo howlgeliyo oo aanay qaladaadkan iyagu waxba ku lahayn maadaama ay waqti hore mar noqdeen ciidanka labaad ee Afrika ay ku faanto uguna awoodda badan haddana la heli karo kuwii oo kale iyo weliba kuwa ka sii ilbaxsan balse su'aalaha mudan in la isweydiiyo ayaa waxay tahay maxaa hortaagan iminka in si dhab ah loo dhiso ciidamo qaran oo tayo iyo tiro leh oo ka mira dhalin kara hawsha loo igmado xageesa aadan ciidamadii 10 sano ee la soo dhaafay dawladihii ku meel gaarka loogu soo tababarayay dalalka Djibouti, Uganda, Kenya, Ethiopia iyo xeryaha kale ee ku yaala gudaha dalkeena xagee la aadan hubkii loo qaybiyay maxaa cadeymaha loo hayaa qof kasta oo ka mid ah ciidamada iyo hubkii la siiyay si loola xisaabtamo aaway kumanaankii sarkaal ee sida xisaab la'aanta loogu dhoobay darajooyinkii qaranka xagee maray saraakiishii maamulaysa ciidamada ama soo
xulay markii horeba haddii la bedelaysa ma jiraan dukumeenti tixraac leh oo xilwareejintooda la socday si loo dabagalo hubkii iyo ciidamadii Soomaaliya loo soo tababaray halka ay ku dambeeyeen maxay tahay sababta qorshe la'aan weli kuwa kale loo sii tababarayo maxaa talada ciidamada loola wadaagi la'yahay saraakiisha iyo ciidamadii hore ee waaya aragga ahaa meel kasta ha joogaane maxaase laga bartay oo waaya aragnimo ah qaladaadkii ka soo baxay dibudhiska ciidamada dalka shacabka muddo intee leeg baa lagu sii qancin karaa iyadoo aan waxqabad muuqan inay mar walba madaxda dalku ka hadlaan oo keliya amniga saxaafadda sawir ma u tahay in ay maalin kasta noo sheegaan waqtina ku lumayaan kulan looga hadlaya amniga oo Muqdisho lagu qabtay intaa iyo in kale oo ka badan waa su'aalaha laga yaabo haddii la isweydiiyo inay wax ka tari karayaan amniga dalka adiguna xaq baad u leedahay inaad qudhaadu isweydiiso haddii tahay ruux u damqanaya mustaqbalka dalkiisa waayo wax macnaan nooma samaynayso in waqtigeenu ku lumo dawladda aan noo qaban shaqo muuqata oo waxtar leh yaanase ku sii fogaanin hadalka waayo waxaa suurtagal ah inaad aniga ila yaaban tihiin ama aad jeclaan lahaydeen inaan ka aamuso arrimahan maxaa yeelay waxaan ka hadlayaa wax la wada og yahay oo lagu ballamay inaan waxba laga qaban balse jawaabta ugu macquulsan ee aad siin kartaa waxay tahay ciidamadii waa iska kala tageen markay daryeel iyo mushaarba waayeen ama ay arkeen iyaguba inaanay madaxdoodu diyaar u ahayn inay ka faa'iidaystaan xooggooda anna waxaan intaa ku sii darayaa inay suurtagal tahay in ciidamadii u kala shaqo tageen ganacsatada maamul goboleedyada madaxdooda xilalka ka haya dawladda hoteelada safaaradaha kuwa si gaar ah hay'ado u maamulaan iyo shirkado bareebad ah oo UN-ka iyo dawladduba ruqsad u siiyeen sugidda amnigooda cid kasta oo ay dhaqaale kula heshiiyaan iyagoo ka madax bannaan ciidamada dawladda kana hubiya nolol fiican inta soo hartana waa inta yar ee maanta ka dhaqdhaqaaqaysa ciidamada dawladda kuna mintida iyo hawshooda iyaga oo laga yaabo inay saluugsan yihiin sida ay wax u socdaan mar haddii saxaalku sidaa yahay ciidamadiina cududoodii la kala qobqobay amnigiina hadal mooye si kale loo maarayn la'yahay maxaa diidaya in cid kasta oo diidan dawladnimada ay dalka ka geysato falal ammaan darro ah weliba lagu cayaaro quruxdii nolosha dhismayaasha gaadiidka iyo baalayaashii waddooyinka lagu xardhay ilaan waa tii la yidhi haddii bisadu iska tagto jiirku u cayaaray